السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيد سلام الدمان أصحاب تقالية مالك السعودون كجوكتان سو دواذا نو سو دواذا خيرية فرحة سو دواذا اسكو سو نقد كلي وناكسن وبرنامج كيني ماموانو صاحبة دودو جنتا دير رجلنتا كفايديسو ضبيب دذال سيدا سؤالها إلى تالي والهل soo dhawaada welcome allaha sahlo allaha saqiro wax walbo ay danteenu tahay caafimaadna allah keena aamiin dhiigga iyo dhimirka nabad ku raaco maanta waa sabti maxay dhahan soomaali sarbi qooqan haya soo dhawaada welcome hadduu ilaahay ka raali noqdo insha allahu khayr waxyaabo badan aan ka hadlaynaa laakiin mar walba waxaan jeclahay inaan idinka codsado ducaysta dadaala dulqaata meesha waa meel dhiirigelin meelse u taalaa loola yaalaha la dhahay marka dhiirigelin wanaagsan dhageysi wanaagsan channelku waa channel waano so dhiirigelin wanaagsan mar walba waxaan jeclahay inaan ku hormaro inta channelka si boodo aniga ii duceyso ayaga duceysato saaxiibada qaaliga soo dhawaada welcome dhiirigelin wanaagsan waa soo galay comment shalay anigana love like idii saaray welcome waa idin leeyahay khayr iyo farxada ilaahay noo wada weydiiyo dhammaan ilaahowna badiyo na barakeeya la dhahaa dadku markay badan yihiin dabcan lama kala gaaro marka mar walba iigu sabra taas laakiin meelaha aan fariisano oo channelka ka mid yahay amaba qolalka hoose wixii daryeela hore uga qaata soo dhawaada welcome ila tali walaalaan ku hormaraynaa oo muddo dheer oo sanadaha qadka ka maqneed waxaan maraynaa 5 to 6 years ila tali ma sameynin so kolley ila tali waan wadnaa laakiin dhinaca aan u gedino waa dhiirigelinta guud laakiin ila tali xoogaa muddo ka maqnayn marka soo dhawaada welcome talawaatii ilaahay tala markii la bixinayo qofka waxaa fiican inaan laga reebin saa nafteyda la jeclaa lahaa in aniga tala laysiiyo laakiin laydaayo halka aniga aan rabo inaan u dhigto arrinka way nafteyda waxay helaysaa qanaaco inaan go-aanka aniga lahaa talawaatii ilaahay soo dhawaada marka ila tali is back insha allah iyadoo weliba kooban adigana cindigaaga la kaasho soo dhawaada ila talidii aad taqaaneen oo beri waaya ka bixi jirtay channelka siidaa su-aalay u baxday ka hor waxay jirtay inay noqotay cabasho haween complaint ka nagu batay ama eedaynta nagu badatay soo eedayna waxay u baahan tahay sheeko dheer oo qoto dheer ay u baahan tahay marka waa ka tagnay midda kale anagoo taraaraxeena aragnay kululaalayno dhididayno xanaaqayno xoogaa xasaradii wadata waa ka leexanay iska maskiina iska nahay waxaa jecelnaa inaan wax walba ilaahay hanoo sahlay aan si kheyr leh ku xalino si farxad leh ku xalino oo si nabada ku xalino maadaama meeshu ay tahay allaha nala xaliya meel waano soo dhawaada dhiirigelin wanaagsan channelkan iyo aniga waxaan qabtaba waxaan idii qaabilsanahay ama channelada aan fadhiyaba dhiirigelin wanaagsan marka soo dhawaada lama diidano su-aalo badanaa la qabaa qaarkood waxay u baahan yihiin cilaajo quraan dawo ma leh qaarkoodna dawaa loo baahan yahay cudur walba ilaahay daawadiisa wuu keenay qod loo maraba marka dhakhtar lagama maarmo mararka qaar soo dhawaada hadday danta kuu diido waxay noqotaba dantu xishooday noqon kartaa xataa ciladaha qaar waa lala gabadaa ciladaha muuqdo sida waxa maqaarka ku dhaco kale iyo waxaa laga yaabaa inaan hafiyo balow dhahno oon dhakhtarka u tagno tusnoo dhahno dhakhtar waxaan waa maxay raashkan waa maxay allergy miya cambaar miya heblow miya laakiin wixii xaal adduunyo iska ah in lala gabadaa dhici karto so xishoodka inkastoo fiican yahay laakiin xanuun lalama gabado aniga ma dhihin soomaaliya dhahday waxaa qarsataahu way ku qariyaan marka saaxiibtinimo wanaagsan waxyaabaha qaarkood ha qarsanina haddii waxa aan ka hadlayno ama aan ka cabanayno ay u baahan tahay daryeelna dan dabcan shilinkaaga iyo gooskaaga waa lesbaraaha la dhahay waa iga talawaatii ilaahaye u doonto daryeel insha allah allahna idii sahlo allah idii saqiro habar fadhidaahu lagdani la sahlane soo dhawaada welcome amuurta allaha sahlo allaha saqiro dadku waxbay ka cabanayaan intaas waxa laga cabanayane dawaayaha keenay marka mar kasta maalin kasta oo noolnahay oo adduunyada joogno waxaan gubaynaa waa energy tabartaasaan gubaynana meeshay ka timid meeshay ka baxday
waa inay wax soo galaan. Okay, meeshay wax ka bixaan alayri waa inay wax soo galaan. taasoo sadaqada lagala jeeda u maleynaa gacantii wax baxsataa wax heshay dheheen Soomaali. Marka laakiin jirkii energy gubo waa inuu energy dib u helaa, haddii kale waa u gaasire aqliga ku jira waa intaas. So waxay noo socda barnaamijkeeni specialka ahaa ee ka faa'iideyso dabiibka. soo dhawaada, welcome. Inta kala socda barnaamijkan ama channelkan kala socda, channelkeena kala dabiibi dadaal, we are back. dhodhoojinteeni ila garan wadnaa. So waa ka xagaas waa dhodhoojinta caafimaadka iyo howlihii inoo qaaska ah ardada iyo cashar bixinteeda basically adinkana dhiirigelintiina yaro ila garaa xag ka sii qaata. inta iyo saaxiibada guud waana wanaagsan, dhiirigelin wanaagsan. الله يدي لقرب قلو، الله أنا لقرب قلو دمان دعا لذكم الرابع لتعال وناكسن. سود بهذا welcome. انت دي رجل انت دقي سنيسان وحاانك هالله هدا إذن أنفعان قاسهان برنامج كان سبيشالك قيبته سكالا بحا. دي رجل انت دقيستا لغايا بأذيق إنو نكو أنفعين دي رجل انت كو أنفعضو لغايا دي رجل انت إنينا ساس necessary كوغسي أهين لكن أذيق أنك هالله إنو كو أنفعو. soo dhawaada, welcome. channelkan waxaa yaalo intaahoo kun oo dabiibi dadaal quseeyo. soo qaybta hoose sii aad haddaadan hadda programkan la qabsan karin. adeega guud waxaa iskale walaalaha channelka la ah saaxiib ama akhyaarta channelka saaxiibka la ah. aniga ma gado Amazon aada insha Allah. adeegana ka baxso ama kala bax qaybta hoose insha Allah. soo dhawaada, welcome. maxaan ka hadlaa marka? waxaan ka hadlayaa horta jirka waxaa ku yimaada isbedelo. hadday tahay dadka shaqada badan, hadday tahay dadka xataa aan dhaqaaqin insha Allah isla tacaal wanaagsan. haddii la isku arko cagaha oo ku bararo fadlan ogaada way fiican tahay in tala la qaato. qofba 100 ku talidayaa layiri ama 100 tala doonatay. soo cagaha oo ku bararo haddaa aragto ama qof isku arko cagaha oo bararo dhakhtarka in la wargeliyo way fiican tahay. haddii cagahaaga bararkooda lagu tilmaamo adaa socod yar ama adaan socon then waa okay, socodkaasaan raajici doonaa iyo la tacaalkeeda. laakiin haddii cagahaas bararkooda ay saameyn ku yeelato cilad ka jirto keliyaha iyo kaadihaynta iyo wareega dhiigga iyo waxay noqotaba deen dhakhtarkaaga taladiisa dhageyso insha Allah ama qaado. soo dhawaada, welcome. qaybta hoose waxaan inoo gelin doonaa mashiinkan waxaa la yiraahdaa foot massage. okay, lugaha ayuu masaajeeyaa, gacmahana waa lagu sameyn karaa, xusulka ilaa iyo faraha waa la dhexgeliyaa, lugahana waa la dhexgeliyaa. kubkana waa u fiican yahay dadka haysta muscle spasm ama kubka uu rooro ama ayagoo gaari wada u rooro ama ayagoo hurdo uu rooro wuu u fiican yahay. soo waa kaasaa reer dabiib badanaa ka duceeyey, haysto ku tashto aada u isticmaalo. intiina haysato waaba haysataa reer dabiibow. soo dhawaada, welcome. qolka la tacaalka jir xanuunkaan fadhinaa. channeladeennana waxaan fadhinaa channelkeena maamoona iyo saaxiibada. fadlan ha iska iloobinina dabiib iyo dadaal, we are back. channelkeeni kale ee YouTube. soo dhawaada. waxyaabaha qaarkood oon jirka kala kulmeyno waxaa keeno isbedelka da'da. dadku waxay rabaan ilaa yaraantoodii dhallinyaranimadooda weligoodba inayna jecdhihin fiicnaa laheeda fiicnaa laheeda. da'da way soo dhowdhowmataa mararka qaar. waxaa dhici karta dadka qaar inay dhahaan maamo ani weligay xanuunaan dhakhtar la galay ma aanan arag. hadda waayahan dhakhtarku waa ku noqdaa marba dhinaca layga qabtaa maamooy maxaa talaa maxaa iga qaldan ee dadku aad ugu wareeraan. runtii difaaca jirka ama tabarta jirka way soo gacsirtaa. hadduu gacsiro quruxdaada iyo hanaankaaga indhahaadaa kuu macaline waa dareemi kartaa maraayad markaa isku fiiridaba sidii oogadaada isku bedelayso. dhalaalkii shalay aa lahayd malihid, meelihii shalay kuu giijasnaay maanta ma giijasno. soo su-aashaas jawaabteeda waa isfurfurto indhahaa kuu macaline. ana madhiin Soomaaliya tiri indhahaadaa kuu macaline. laakiin markay gudaha wax ka jirto wixii kaa khaldan dabcan waa wax daryeel u baahan, dabiib cilaaj quraan ka bacdi u baahan daryeel. so markaa wax la yaabtaba mar walba isku day inaad dhakhtar ballansato. waxyaabaha qaarkood sasaan adag ayay salka ku wataan, waxyaabaha qaarna la tacaal yaray rabaan.
nafaqeynay rabaan quraan saar nafaqeyn waa ka booday alxamdulilah waa bogsooda ma arkin oo qofkaas soo dhuldhaca uu xanuunsanaa qofkaas maalmaan lahaaya hadduu qofkii isla tacaala bul waaba ka boodayba qofkii waxaa arkaysaa caafimaad laba laaban ilaahay siiyey haddaan dib u xasuusano maalmahaas ilaahay aan barinaynay daryeel fiican aan qaadanaynay cunnada aan kala bedelaynay nasanaynay xataa waxaa helaysa energy xataa haddii lagu duceynayo oo lagu laa ilaaha ku caafiya iyo dadka dhaho ii soo duceeya waxaana la dhahay afka hadduuna duceyn uurkaa duceeya marka dadka ducada jecel dabcan ama ducada badan way ka caafimaad badan yihiin dadka kale dadka la amaanay kamid yihiin dadka ducada badan leh so waa aragteen haddaa caafimaad qabno waxaa laga yaabaa inaanan time qaadanin time aan ku nasano time aan ku xisaabtano time aan isku nafaqeyno time aan isku daryeelno xataa ma sii dhigano waxyaabaha inoo fiican ma sii diyaarsano haddaan soo dhuldhacno lee la carcararaa waxaa laga yaabaa kun nafaqo inay ku hortaalo ama kun daryeel ku horyaalo laakiin maadaama aa xanuunsan tahay aadan kala garanaynin wixii dhanaa isku dhex yaaca wax kuu roon iyo wax kale ma taqaanid dadka qaarkood markay xanuunsan yihiin intay confuse badan noqdaan wax dhanba ma taabanayaan waaba tabartiiba sii baqanaan ayagoo baahanay sii baqanaan waa cidladaadii gooniha kugu sii kuusta waaye marka hore haddii lasii aqoon kororsado waxyaabaha jirka u fiican daryeelada nafaqooyinka markaas lagu cararo kuwa lasii kaydsado isku roon ma ruqato maxaa loo yiri saasoo kale waa xaalka isku roon ma ruqato marka in laysku rooroonaadana waxyaabaha ugu fiican in laysku dhiirageliyo waaye dhiirageliyo wanaagsan insha allahu khayr see tahayba waxay tiri soomaalida waa sad marka naftaada oo aad marxabeydaa naftaada oo quruxsataa naftaada oo ammaantaa naftaada oo duceydaa naftaada oo dhiiragelidaa dheefaysataa waxyaabaha layskugu hiiliyay ka mid tahay xataa hadduu ilaahay ka raali noqdo insha allahu khayr dhakhtarkood wax weydiidaa naftaada oo hiilida waay haddana fiirsiga ka fiirsashada waxyaabaha naftaada ku imaanayo maxay u dhacday maxaa saan u noqday lama dhihi karo waa la noqonaa waa la cunaa waa la cabaa waa la neefsadaa cilada way iska imaanayaan laakiin haddii adigana aad ilaahay ku xiran tahay halka ku xanuunaysa qur-aanka ilaahay aad ku aqrido dheefna aad raadsato wixii howlqabadoo loo sameynayane kolay masaaj ku tahay ama duugduugis ama riixriixis aad raalli ku noqoto hala yaabin hadhihin wax sameynaayo ma arag ha noqonin copycat haddaadan arag weligaa qof lugaha taagtaagayo den dad badanoo millionsaa lugaha taagtaago danahoodayna u taagaan lugaha caafimaadka ku jira lugahood 20 minute 20 daqiiqa ama 30 daqiiqa kor loo taago caafimaad badanaa ku jiro laakiin hadday cidu kaaga waramin caafimaadka ku jira ma taqaanid hadhowna waxaa leedahay qof weynaana ma lugaan taagi karaa lugo la taagtaago weligeeba ma arage inaa aragta le maa ku koobiyeyni because of you never read a book oo wax nafaqala laga qaato sama aqoon laga qaato weligaa ma la hadlin qof oo adig kaala talinayo daryeelka naftaada dadkii ma yaqaanaan daryeelka naftooda dad kala taliyo so waad yaayaabee waa xixishoone waa gagabane waa babaqe because there's no kalsooni ma jirto aa lugahaaga ku taagtid because of caafimaadkaa ku jiro ku riixdid mashiin masaajeeyo ku gadatid saliidaha la mariyo ku gadatid nafaqooyinka loo cuno caafimaadka lafaha aa u gadatid ma haysid laakiin markaa soo dhuldhacda dhakhtarka waxaa ka rabtaa inuu dawo ku siiyo dawadaas maxay ahayd laga yaabay inay calcium tahay cunooyinka calcium kalena haddaa taqaanid dawooyinka ugu fiican oo calcium kale haddaa taqaanid saliidaha loo marsado lafa xanuunka iyo neerfa xanuunka aad taqaanid mashiinada loo isticmaalo aad taqaanid riix quraanka mari socodsii lug waa la dhibaa dabaal doono haddaa adiga isku ogolaatid waxa u fiican lafahaaga ilaahu miisaan qaad ku noqoto iyo socod waa aragtaan sida socodka loo amaanay maasha allah kabaha iska bedel kaba qurux badan oo naacimo ku soo saaray labiskaaga caafimaadka cagahaaga u fiican waxaa laga yaabaa inaad damqashada dayso arrimahaas ma dabagelin mahano dariiqi inaad licliic ku martid liica cagaha u liita jilibkaa u liita sinahaan u liita dhabarkaan u liita meel laga haayo mataqaanid haddii la doonane
baabacada lagu socdaaba lagaa hayaa meel kale lagaama hayo. So anyway, enjoy. Mashiinka qaybta hoose idiin gelina waa inoo dhiirigelinta kale hadduu ilaahay ka raali noqdo. Don't forget ila tali walaal is back. Tala wanaagsan ila afkeena waxsan ka keen. waxaa idin leeyahay dhammaantiin saaxiibtinimo wanaagsan. waxaa idinkula talina waxaa nafteyda kula tali lahaa ummadda aan la shaqeyno kula taliyo wanaageeda iyo farxadeeda iyo caafimaadkeedana ay dhadhamiyeen qof walbana tiisa goorku ilaahay ka raali noqdo ayay israacdaa. anigu lama yaabo dadku hadday dhahaan xaggee iska raaci weysay iyo muxuu arrimahayga usoo daaheen iyo ilaahay baa og. fadlan ducada isku kab, daryeelkaaga daacad u noqo, daba soco danahaaga. inta sanood qalalan tahay inta wax kaa qaldan ma naqaano. iljinni il insi allaha naga xijaaba, xasadka allaha naga qabta. isha xasadka dadka waxay ka dhigtaa madluun, waxay siisaa jir xanuun, waxay siisaa caajis. nolosha dhanaad kaata noqoto. marka isha xasadka allaha naga qabto, xabiibka allaha noo badiyo. aamiin. ii soo dhawaada, noo soo dhawaada. welcome. isla tacaal sahlan.